بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو قدوميها قولها شعبك حبناها قولها وزير ده حبناها لبدا قول برلمانك فدرالك الصومالية تليها عيدن كبوليسك الصومالية iyo taliya ku-xigeenadiisa safiirada iyo saaxiibada kale ka socda dawladaha aan saaxiibada nahay duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka iyo kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka dhamaan marti sharafta kale waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib waxaan u hambalyaynayaa dhammaan sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda ciidanka booliska Soomaaliyeed xaasaskooda iyo caruurtooda. Runtii maanta waa maalin ku weyn guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ay u dabaaldegayaan ama ay xusayaan 78 guuradii ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah ciidanka ugu faca weyn ama ugu aan dhihi karno waa hooyada ciidanka Soomaaliyeed guud ahaan. ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu noo soo bandhigay maanta waxqabad runtii aad u ballaaran. waa u mahad celinayaa waana bogaadinayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenadiisaba taliya xijaar. dadku waxa ay moodaan kolka laga hadlo ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka jooga kaliya saldhigyada iyo wadooyinka, laakiin kolkii dad badan ay daawadeen presentationka ama bandhigii halkan lagu sameeyay waxay gacmaha ku hayaan howlo qaran oo aad u baaxad leh markii la isku soo duuduubana ka turjumaya u adeegida shacabka Soomaaliyeed. boolis marka laga hadlaayo sidiisaba waa shakhsiyaad laga soo xulay shacabka dhexdiisa loo tababaray loona carbiyay u adeegida shacabka Soomaaliyeed dibna loogu soo celiyay si ay ugu adeegaan. waana ku ammaanayaa waana ku bogaadinayaa waxaana markhaati ka wadanahay maanta inay hayaan shaqadii laga rabay ama laga filayay shacabka Soomaaliyeed inay u qabtaan. maanta waa maalin ay tahay inaan hambalyo iyo tahniyad iyo bogaadin u soo jeedino booliska Soomaaliyeed, laakiin haddana sidaasoo ay tahay munaasabadahan oo kale marka la isu yimaado waxaan laga maarmayn in anoo huba inay kala tagsan yihiin igana fahamsan yihiin waajibaadka qaran ee horyaal, haddana wuxuun in laga xasuusiyo waxyaabaha aan jeclaan lahaa inaan hoosta ka xariiqo waxaa kow ka ah waa isxasuusinaynaa mooye waan hubaa inay u taagan yihiin harya maalin oo qorraxda ugu dhacayso roobka ugu da'ayo aynan u hoyano aynan u horgelin. waa ka hortagga kooxda nabaddiidka ah ee mar walbo ee liddi ku ah danaha shacabka Soomaaliyeed. taa marka laga yimaado booliska wuxuu kaashadaa ama kaalmeystaa shacabka Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan. waxaa dhacday ama maalmahan magaalada mararka qaar ka dhacday in dhacdooyin ay dhacaan kaga imaanaya ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan shacabka Soomaaliyeed. waa ku ammaanaya waana ku bogaadinaya dhacdooyinkii dhacay in ay ciidanka booliska oo kaashanaya hay-adaha amnigu ay tallaabo ka qaadeen horgeeyeen hay-adaha garsoorka. laakiin waxaan runtii aanan marna hilmaami karin falcelinadii iyo fariimihii runtii xambaarsanaa yacni xaqiiqada ee iga soo gaaraya shacabka Soomaaliyeed oo aan dareemi karo inay madaxda iga sarreysana sidaas lamada u soo gaarayeen markii dhacdooyinkaas oo kale ay dhaceen. qof loo carbiyey inuu shacabka Soomaaliyeed difaaco, qorigii lagu soo iibiyey canshuurta iyo rasaastii lagu soo iibiyey inuu ku dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed marna wax la aqbali kara ma ahan. dhacdooyinkaas oo kale hadday dhacaan madaxda iga sarreyso qofka ugu horreeya soo wacaa noqona, aniguna waxaan soo wacaa xijaarne sidoo kale iyo saraakiisha kaleoo la midka ah. waa ku mahadsan yihiin siday u maareeyeen, laakiin waxaan rajaynaynaa in la maareeyo inayaan dhicinba oo laga fursado inay dhacdaan. qodobka saddexaad oo aan rabo inaan xuso waxay tahay waxaan la wada soconnaa sida taliya xijaar uu xusay inay waddanka guud ahaan gaar ahaan caasimadda ku soo bateen maalmihii lasoo dhaafay waxyaabaha maanka dooriya isticmaalkooda.
waxyaabahaasi waa waxyaabaha kalifa ama sababo ugu badan faldembiyeedyada aadka u ballaaran ee dalka ka dhacaya hadday noqon lahaayeen dilka iyo dhammaan xadgudubyada kale la midka ah. waxaan hubaa inaad qorshe ka leedihiin, aragtina ka leedihiin. waan idinku bogaadinayaa in aad gacan bira ku qabataan cid alaaliya cidday ku howlan ama ka shaqaynaysa arrimahaas. dabcan qodobka afaraad ee aan kusoo gabagabaynaya waxay tahay maadaama dalku ku jiro marxalad doorasho ah sida taliya xijaar uu sheegay, tiimka sugaya amniga doorashooyinka asiga ayaa hormuud u ah, asiga ayaa team leader u ah. waxaan rajaynayaa in ayadana sidaasi la mid ah intii soo dhacday doorasho socotay kama dhicin falal tabasho amni ah oo la xiriira amni darro. waxaan rajaynayaa allah subxaana wa tacaalaana uga baryayaa tiimkaas u xil saaran amniga doorashooyinka oo taliya xijaar uu hormuudka u yahay in inta hartana ilaahay u fududeeyo. intaas kadib annagoo tixgelinayna wakhtiga oo aad u yar iyo hoolkoo xooga aad yara moodo inuu kulul yahay iyo oggolaada dad badan oo mudan oo inay hadlaan ayaa goobta fadhiya, laakiin waa anoo ku hadlaya bahda maanta munaasabaddan iyo oggolaada inaan ku soo dhoweeyo madaxweynaha. waa uu cudur daaranaynaa intuu gaari waayeen. waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo.